كورن haddii aan kuu sheego in inta cunugaagu uu isticmaalayo smartphone-ka ama tablet-ka ama computer-ka ama aaladahan kala duwan ayay maskaxdiisuna sii yaraanaysaa marba marka ka dambayso khatarta arrinta ka sii halis badan waxa weeye caruurta kaliya kuma eka waalidiintu waxay bilaabayaan inay lumiyaan xusuusta feejignaanta iyo diirad saaridda iyagoo aan marna dhicin tani waxay horseeday in loo bixiyo magac cusub oo cudurrada ka mid ah oo la yiraahdo digital dementia oo micnihiisu noqonayo hoos u dhac ku yimaada maskaxda iyo shaqadeeda taasoo ka dhalanaysa isticmaalka tirada badan ee teknolojiyada waa mustaqbalka maskaxdeenna iyo midda carruurteena waa halis weyn oo ku soo wajahan amniga diinta iyo ummadeenna guud ahaan waana wixii la dhihi jiray national security threat halis weyn oo amniga qowmiga haysata haddii ay tahay in loo fahmo sida saxda ah talaabada munaasabka ahna laga qaado muuqaalkan waxaad ku baran doontaa haddii la yiraahdo waxa uu yahay digital dementia sida uu saameyn ugu leeyahay waalidiinta iyo carruurta calaamadaha digniinta leh ee qofka lagu arki karo ama carruurhaada ama dadka waaweyn iyo ugu dambeyntii tallaabooyinka mudan inaan qaadno maanta si arrintaasi haddii ay hore u dhacdayna aan u yarayno saameynteeda haddii kalena aan uga hortagno daraasooyin la sameeyay ayaa waxa ay sheegayaan in caqliga bini'aadamka ama intelligence-ga IQ-ga waxa la yiraahdo uu hoos u dhacayo markii ugu horeysay taariikhda dunida waxaana lala xiriirinayaa isbeddelka kaliya ee dhacay marka la fiiriyo 35,000 oo sano taariikhda inta la xuso ayaa waxa ay tahay teknolojiyadan casriga oo 24 saac madaafiic ku garaacaysa indhaha dadka maskaxdooda inay tahay midda kaliya ee wax bedeshay saameyn ku yeelatay caqliyadii dadkana hoos u dhigtay daraasadaha qaar waxa ay tilmaamayaan in dadka waaweyn ee daadoodu ay u dhaxayso 35 ilaa 44 lagu arkay halis caafimaad oo ilaa heer 4% ku timid hoos u dhac weyn heerka maskaxdooda fikirkooda iyo adeegsiga waxyaabihii caadiga bini'aadamka kale u ahaa ee da'dooda goor dhow ka hor waxa laga naxo waxa weeye isbedeladan inaynu ku bilaabanayn kaliya marka qofku soo weynaado ama uu dhalinyaro noqdo carruurta yaryar ee 2 sano jirta waxaa lagu arkay isbedel weyn oo maskaxdooda ku dhacaya sawirro laga qaaday maskaxda carruurta da'doodu aad ku yar tahay 2 sano ilaa 5 sano inta u dhaxaysa ayaa waxaa lagu arkayaa calaamado waaweyn oo muujinaya ama dhakhaatiirtu noocyadii ay ku arki jireen dadka waaweyn oo da'da ah ee qaba cudurka la yiraahdo Alzheimer's disease. This brain scan is from a teenager that spends 6 to 8 hours a day on devices. sawirkan maskaxda waa wiil dhalinyar oo isticmaala aaladda mobilka 6 ilaa 7 saacadood maalintii. Dementia. You're seeing signs of dementia and Alzheimer's in teenagers. Dr. Mark Williams waxa uu ku arkayaa sawirka maskaxda wiilkan calaamadaha cudurka maskaxda ku dhaca ee la yiraahdo Alzheimer's. cudurka Alzheimer's waa cudur ku dhaca maskaxda oo si tartiib ah u sii xumaada oo aan dib loo celin karin kaasoo burburiya xusuusta awoodda fikirka ugu dambeyntiina horseeda qofka in noloshiisii caadiga ahaa ee nolol maalmeedka wax qabsigiisii isla shaqaynta maskaxda iyo gacmaha xataa uu gabo bal sawiro marka cunugaagii yaraa oo 8 jirka ah oo 11 jirka ah balse ku soo bilaabay isticmaalka alaabtani muddo hoos isagoo aad iyo aad u daayir maanta uu la dhiban yahay isku xirnaanshaha maskaxdiisa iyo gacmihiisa oo aanan isticmaali karin waa wax laga naxo runtii markaad aragtid sawirada laga qaaday maskaxda carruurta yaryar ee aan hadda sheegay bal ila fiiri sawirkan isaga ah marka aad eegtid maskaxdan cunuga yar ee laga qaaday ee sida ula kac ah inta loogu dhiibay telefoonka lagu sii daayay muddo 3 saacadood maalin waliba inuu isticmaalo waxaad dareemi kartaa isbeddelka maskaxdiisa ku dhacay inay aad iyo aad wax looga naxatahay heerka guduudka uu marayo oo maskaxda saameynta ay ku yeelatay iyo sida ay u sii qurmayso mar waliba marka ka dambayso oo ay u sii dhimanayso maskaxdiisa iyadoon la dareemaynin waalidiintuna markan waxa laga yaabaa inay isaga ugu roonaanayaan isaga aamusiinayaan qayladiisii amaba iyagu ay rabaan inay nastaan sidaa darteedna isaga aamusiinayaan qolka intay u ogolaadaan ama TV-ga u ogolaadaan ama ay gacanta u geliyaan tabletku ay leeyihiin iska isticmaal muddada yar ee uu aamusan yahay cunugaasi oo gacanta ku haysto ogow wuxuu la mid tahay adigoo sumaynaya dilaya maskaxdiisii mustaqbalkiisana meel mugdi gelinaya kaaga sii daran oo cidda ugu badan ee arrintaasi mas'uuliyadaasi iyo culayskaasi qaadi doonta rabbi hortii iyo adduunyo inta ay joogtaba waa adiga waalidka u dhiibay
sababtoo ah cunuga kan haddii isagoo 8 sano 10 sano dhowr iyo 10 sano jira laakiin usoo bilaabatay arrintaa goor hore dhaawac maskaxeed uu gaaro cidda hooyo iyo aabbo u dhahayo waayo waa adigii soo koriyey waa adigii dhalay wax ka nasiib xun ma jirto wax ka indha xun ma jirto wax ka argagax badan ma lahan hooyo ama aabbo cunugii ay ku tashanayeen marka uu soo hana qaado inuu wax u taro in maanta uu u baahan yahay gacantooda bal ma aha dhaqaale maskaxdiisu ay gaartay meel aan waxba laga qaban karin arrintan inaga kaliya saameyn naguma lahan dunida oo dhan ayay saameyn ku leedahay balse inaga Soomaali haddaan nahay teena lama oga lamana daraaseeyo waxaan u baahannahay in dunida inteeda kale intaan eegno bal ugu yaraan tusaale intaan ka qaadano kadibna aan ku dabaqno nafteena waxaad arkaysaa caruur tiro badan waalidiin dad waaweyn oo dhibkan la daala dhacaya maalin waliba oo ka sheekeynaya barnaamijyo waaweyn ayaa laga diyaariyay dunida talaabooyin ayaa la qaaday dagaal ayaa lala galayaa ilaa muxuu ahaa la isla gaaray baarlamaanada koongreesyada in la dacweeyo hay'adaha arrimaha mas'uulka ka ah iyo shirkadaha waaweyn ee leh barnaamijyada noocan oo kale ah oo dadka dila laakiin lacag ayaa 24 saac ku bixinayaan arrimahaasi oo tabar looma helayo arrinta kula gudboon marka waxa weeye bal ina qisooyinka dadka waalidiinta iyo dhalinyarada adigoo kale intaad dhageysatid kadibna talaabooyinka munaasabka aad qaadid muuqaalka qayb dambana waxaan kugula wadaagi doonaa hadba talaabooyinka munaasabkana la ahan qaadi karno shakhsi ahaan una samayn karna caruurteena sidoo kale marka hore aan fiirino dadkan waxyaabaha ay leeyihiin Dr. Mark Williams oo ah khabiir caalami ah oo ku takhasusay cudurrada maskaxda ayaa waxa uu sheegay in waxyaabaha aad u ogolaatid maskaxdaada inay qabato sida shaqada fikirka iyo inay wax isku dabarido oo sida bini'aadamka Ilaahay ugu talagalay ah ay saameyn fiican ku yeelanayso mustaqbalka maskaxdaada beddelkeeda haddii aadan waxba qabanin oo maskaxdaada wax alla wixii ay qaban lahayd ama fikirhaada ama shaqo aad u wareejisid inay teknoolajiyada ku qabato adigoo inta ku raaxaysanaya ama iska fadhiyana waxaad ogaanaysaa in cagsigeeda aad heli doontid oo aad dhaawacaysid maalin waliba maskaxdaada taa micnaheedu marka waxa weeye mobilkan yar ayna haysano tabletkan aan haysano laptopkan aan dul fadhino in 24 saac uu qayb ka noqon karo horumarinta iyo burburinta nafteena hadduu qofka ku shaqaysanaynin arrimahaas oo ay shaqo ugu xirnayn oo wax kale oo faa'iido una ka helaynin oo kaliya ay tahay entertainment iyo baashaal iyo wixii la midka ah arrintaasi waa arrin musiibo ah qaybta dambe aan ku arki doonaa xataa kuwii ku shaqaynayay oo shaqada ay uga xirnayd oo maalin walba ka qaadanaya mishaaraadkooda ayaa waxa soo gaaray dhaawacyo aad iyo aad u halis badan oo qaarkood maskaxdoodu ay ku waangaareen wax yar aanan eegno wiilkan yar ee dhalinyarada ah oo aan ka rabnin aan ka sheekayno bal clinically sida caafimaadkiisa marka la fiiriyo iyo waxyaabaha ku dhacay baaritaanadii loo sameeyay Max Stoof 17 jir weeye masalan waxyaabaha ku dhacay waxa kamid ah lagu arkay in firfircoonidii oo dhan uu lumiyay inuu noqdo qof isagoo dhan habacsan oo baaba ah wuxuuna muujiyay in qoyskiisii iyo reerkiisii oo dhan uu ka baxay ilaa hooyadiis ama waalidkiisu ay leeyihiin cunugeennii wuu naga dhintay oo sidaan arkayno muuqaalka qaybo kamid ah hooyadii oo aad iyo aad u niyad jabsan oo cunugeedii eegaysa oo dhahaysa cunugeygii waan waayay We lost her son. waan weynay wiilkeennii waan weynay nuxurkiisii mar waliba wuxuu ahaa qof aanan deganayn 90% umana shaqayn karaynin maskaxdiisa marka la eego sidii caadiga ay ahayd wax kale ma aha uu nool yahay uu ku ag joogaa laakiin waxba kuuma tarayo waxna uma qaban kartid waa ka indhaha kaa fiirinaya mar alla markaad siisid device-kana farxadiisa bilaabanaysa isla marka aad ka qaadidna waa isaga moodkiisii isbedelaya caruurtan qaar kamid ah waxyaabaha ay dhaheen waxa kamid ah wax waliba anigu waan ilaabay isla shaqaynta gacantaydii iyo maskaxdaydii ayaaba iyo gacantaydii iyo indhahaygii ayaaba sii xumaadayba oo waxa dhacaya gacanta inay inta rabto indhuhuna ay meel kala fiirinayaan mina waxa dhumay waxyaabihii dabiiciga Ilaahay ugu talagalay waxa noqday qof sidiisuba baaba'ay qurmay oo la wareegay hadalka isaga ah waa hadal kamid ah caruurta la wareystay ee dhibaatada intay ku dhaceen waalidiintoodu ay la daala dhacayaan Definitely. Absolutely. After repeatedly doing it, you just forget everything. sida xaqiiqda ah 100% waan kugu raacsanahay muddo markaad isticmaashid qalabkan sida mobilada waxaad ba ilaabaysaa wax waliba tusaalaha ugu fiican ee aan hayo aniga waa inaan lumiyay isla shaqayntii ay isla shaqaynayeen indhahayga iyo gacmahayga xaalkayguna wuu sii xumaanayay marba marka ka dambaysa marka la fiiriyo ninkan wiilkan dhalinyarada ah Max Stoof
progresska uu maray iyo meelaha processka uu maray waxaa ka mid ah sida tan kow waxyaabaha lagu arkay waxaa ka mid ah gebigiis inuu qol galayo haddaad aragtid cunugaaga qol galaya ama qol mugdi ha ahaado oo jiifka loogu talagalo ama meel gooni isagoo isku soo xiraya iskoolka durba markuu ka yimaado cunuga muxuu sameeyaa bal fiiri cunugaaga isha ku hay saa iskoolka markuu uga yimaado waxa ugu horeeya ku ordaya waa maxay waa telefoonka waa tabletka waa mobilka waa iyo wixii la midka ah why sababtoo ah meeshaas wuxuu ka helayaa dopamine xogaa yaro farxad buu ka helayaa talaabada koowaad lagu arkay marka waxa weeye total isolation inuu ka go'o dadkii kale qoys ma rabo cid ma rabo qaarkood xataa intaynan quraacanin ayaa laga yaabaa inay qadada ku gaaraan haddii maalinta ay joogaan sida jimcada iyo khamiista oo kale u fiirso xataa quraac uma baahno cuntada waxay soo xasuusinayaan xilli dambe sababtoo ah hormoniska jirkoodii oo dhan ayaa qasmaya heerka labaad oo gaaraya waxaad arki doontaa consumptionka iyo isticmaalka aad u badan doona 6 saacadood 7 saacadood ayuu isticmaalayay hadda Markisoo kale marka la fiiriyo markii hore cidda marka uu ka go'ay wuxuu bilaabay 7 saacadood 8 saacadood 6 saacadood inuu isticmaalo game uu ku dheelo scrollingka uu ku jiro kadib wuxuu gaaray hurdadii inay ka tagto sababta hormoniskiisii qasmay cortisolka maadada la dhaho ee maaraysa bal qofka xilliga uu jiifan lahaa iyo xilligii uu soo kici lahaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu talagalay oo dhan ayaa waxay noqotay mess way qasmaysaa marka wuxuu ku badbaadiyaa noloshiisa oo dhanba sidiisaba 2 saacadood 3 saacadood hadduu jiifto waxaa u soo baxday inay ku filan tahay wuxuu gaarayaa habeenkii 3 wuxuu gaarayaa 2 ama 9 saac habeenimo ama 8 saac habeenimo hadda saa u taqaanin ugu dambeyntii waxyaabaha Max lagu arkay waxa kamid ah xataa waalidku waxay isku dayeen laptopku isticmaalayay inay intay qaadaan meel uga qariyaan meesha ay uga qariyeen oo ay ku xireen oo ay lock saareen isagii ayaa intuu ka daba tago habeenimo markii ay reerku seexdaan ayuu furanaya oo soo bixinaya fura ma haysto ogow ma haysto wax kale balse aqliyadiisii iyo maskaxdii ku xiran meesha ayaa waxay la imaanaysaa logic iyo wax kale oo ay laptopkaasi alaabta ku soo baxsato si ay u isticmaasho sababtoo ah waa qof la sito mana joogo parental control ki xataa waalidku wixii ay u dajiyeen ay ku controliyeen laftigooda xataa inuu garab maro ayaa u sahlan oo awoodda uu leeyahay ayaa wuxuu u adeegsanayaa si qaldan ciduna ma oga waalidiintiisu ma aynan ogeyn muddo ayayna ku qaadatay ilaa cunugii uu baaba'o oo markii dambe si wacan loo fahmay inuu yahay qofkan qof tagay oo reerkii dhaafay qisada Max Stoof oo 17 jirka ah waxaan ka cabsi qabaa filayaana inay in badan oo caruurteena kamid ay haystaan fiirso caruurta gurigaaga joogto u fiirso hadaadan dhalin oo kale kuwa aad taqaanid oo kale walaalaha fiiri oo kale kulligood waxaad ku arki kartaa isbedel muuqda inuu ku dhacayo cunuga marka uu isticmaalayo mobilekaas iyo alaabtaasi si ka duwan marka uu isticmaalaynin ama laga qaado mar alla markaad ka qaadid waxaad dareemaysaa mid ka yar inuu isagaran iscunayo u dhahayo hooyo waliba oo damacday inay ku qanciso cunugeeda inay mobile siiso ha ogaatay inay ku bedelanayso maskaxdiisa waa arintii haday aan idin taabtay ee ku saabsanayd qofka weyn ee shaqeynaya laftigii inay problem ku tahay marka si qalad uu isticmaalo ama si aad u isticmaalo Jessica Elephant markaa fiirisid 46 jir weeye problemkan wuxuu ku soo bilowday iyadoo 31 sano jirta 16 sano ay la daala dhacaysay laakiin haylaabin waa executive waa madax waa qof shaqaale ah waa suuqgeynta ka shaqeysa 4 saac internetka isticmaasha shirkado kala duwan bay caawisaa waa qof u dadaalaysay inay arrimaheeda xallisato shaqo ayayna ku jirtaa la soo hanti ayayna ka helaysaa waxyaabaha ay ogaatay waxaa kamid ah in maskaxdeedii iyo fikirkeedii oo dhan uu hoos u dhacay xataa wax kale iska dhaafay erayadii aasaasiyaadka caadiga ahaa inay bilowday inay ilaawdo oo ay xasuusan kari wayso waagaas marka si fiican looma aqoonin digitalka iyo problemka iyo waxyaabaha uu keenayo markaas waxa looga shakiyay inay maskaxda uga taalo buro MRI ayaa la mariyay waxba lagu moogaa waxa la buro kuma taalo laakiin goor dambe waxa la ogaaday addictionka iyo howlahan tirada badan ee internetku 24 saac ay ku jirto inuu ciladeeda yahay ogow qofkii waa la sitaa hadii la baaran waxa fiican lagu ma arkayo tuumarkii looga shaksana waa laga waayay gabadhan iyada ah Jessica waxyaabaha ay sameysay waxa kamid ah reboot waxa la gabigeed inay wax iska qabato oo ay isdaba qabato ay go'aan ku gaartay waxyaabaha ay sameysay waxa kamid ah 8 maalmood oo safar ay waxay u aaday Hawaii tusaalahan Hawaii markay aaday wax alla wixii device ah qalab laptop computer oo dhan meel bay iska dhigtay subaxii waxay soo kacdaa xilliga iyada u baahanta alarm clock ku xiray hebel iyo waxa soo dhan ma jiro waxay leedahay gabigay waan isbedelay oo waxaan noqday qof kale heerkaygii dareenkaygii waxaan bilaabay xataa inaan carfiyo waxyaabo aan carfin jirin carafteedii iyo urteedii iyo dareemaheedii ayuu xataa saameyn ku yeeshay
humaankii isaarnaa iyo waxyaabihii oo dhan waa iga yara baxeen ugu dambeyntii Jessica waxay go'aan ku gaartay inay aasaasto urur la yiraahdo Mothers Against Media Addiction hooyooyinka la dagaalamo in la qabatimo qalabkan internetka urur dhan bay samaysay la dagaalamo arrintan maadaama iyada saa ay ugu dhimatay oo daadaas ku jirta oo aqliyadeeda iyo maskaxdeeda qof aqoon-yahan oo shaqaysanaysa sawiro hooyada xaafadda joogta ee aqoonta badan aan lahayn ama wax badan aan ogeyn ama aan ku baraarugsanayn caruurtina rabtay inay barbaariso absolute tragedy way musiibo way meeshaas taala hadda marka waxay ku jirtaa ururkaasi oo la dagaalamaya arrimahaas oo kale dadka in laga wacyigeliyo loo sheego wacyigelinta noocaas oo kale runtii wacyigelin ku filan ma aha qof iyo shakhsi iyo laba iyo saddex waa in la isgaarsiiyo oo qof waliba in alla inta suuragalka ku wacyigeliyo naftiisuna uu ka bilaabo marka hore aan eegno sawirkan yar tusaale ahaan markaad fiirisid dhanka y axis-ka waa qaybta aan rabno inaan ku cabirno cufnaanta maskaxda bini'aadamka uu leeyahay qaybta kale oo x axis-kuna waxaan fiirinaynaa bal inta aad awood u yeelatid inaad fikirkaaga iyo waxaadii oo dhan qalabka u dhiibatid wax waliba oo aad qaban rabtid mobileka kuu qabanaya laptopka kuu qabanaya internetka weydiisanaysaa marka aad fiirisid marka laga bilaabo a ilaa c waxaad arkaysaa qaybta ugu koreysa marka aad maraysid oo ah shaqooyinka dhibka badan inaad qabsanaysid adiga inaad firfircoon tahay wareegaysid jirkaaga isticmaalaysid iyo wixii la midka ah oo dhammaystiran intaasoo dhan maskaxdaada cufnaanteedu aad bay u saraysaa waa very high markaad fiirisid laakiin mar walba oo hoos u sii dhacdin oo 24 saac smartphone-ka isticmaashid 24 saac computer-kaaga isticmaashid laptop-ka iPhone-kaaga waxaaduna isticmaashid waxa sii dhacaya casaankii inaad sii gelaysid ilaa qaybta ugu hooseyso muddo marka ay ka soo wareegto oo sanado laga yaabo inay noqoto inuu kugu dhaco cudurkii hadday aan sheegaynay oo ah digital dementia oo ah maskaxdaada inay si tartiib ah intay u qoranto kadibna aad gaartid heer aadan waxba qabsan karin oo aad ku tiirsanaatid qalabkaas kaliya waxa la wixii xusuusa isagaad ka raadinaysaa fikirka toolmoon isagaad ka raadinaysaa bulsho haddaad rabtid qof inaad la sheekaystidna qofna physically uma baahnid isaga ayaad ka doonanaysaa arrinta markaad meeshaas gaartidna waa marka ay kuu dhamaatay oo ay bas tahay haddaad qof weyn tahay iyo haddaad caruur tahay labaduba You kind of find yourself rotting away. waxaad arkaysaa in naftaadii sii qurmayso oo aadan qiimo badan lahayn runtii waad iswaynaysaa qofka aad tahay oo ismaba garanaysidba marka aad badsatid isticmaalka qalabkan dowladaha arrintan saameynta weyn ee ku yeelatay iyo shucuubta aadka uga cabanaya maanta waxaa ka mid ah Australia 2018 meelaha agaarkeedii waxa ay soo rogtay ama fikir waxa la soo jeediyay caruurtu ha loo ogolaado inay isticmaasho devices-kooda marka waxay keeneen barnaamij la dhaho BYOD oo ah bring your own device soo qaada qalabkaaga cunug waliba tabletkiisii iyo telefoonkiisii iskoolaadka way keensan karaan baa la yiri si ardaydan ay u horumaraan qarni 21aadna ay uga qayb qaataan digital revolution-kan iyo kacaankan cusub iyo horumar weyn damaca caadiga ah ee la fahmi karo wuxuu ahaa in kacdoonkan cusub ee waxbarashada caruurta ay u suurageliso inuu caqligooda sii bato technology ahaanna ay noqdaan kuwa ka horeeya caruurta kale laakiin arrinta dhacday oo musiibada ah oo Australia ilaa hadda ay ka cabanayso waxay noqotay marka la eego Australia caruurta isticmaasha screenska aad bay uga badan yihiin wadamada kale marka la barbardhigo caruurta Australia 1.5 sano macnaha sanad iyo bar ayay ka dambeeyaan marka la qiimeeyo caruurta dhigooda kale ah oo wadamada Yurub oo kale marka la fiiriyo ee 10 jirka ah cunuga 10 jirka Australiaanka ah cunug 8 sano iyo bar jira camal ayuu la mid yahay marka la fiiriyo xagga fikirka xagga waxqabashada xagga waxbarashada iyo wixii la midka ah markii hore waxa loo haystay in deviceska iyo qalabka wax u tarayaan laakiin waxa la ogaaday distractionka iyo weecashada iyo qaska iyo waxyaabaha tirada badan ee cunugan 24 saac ku socda maskaxdiisu inay caqabad ku tahay mooyee in waxba u faa'iideynaynin hadda marka olole weyn waxa loogu jiraa go'aanka isaga in lagala noqdo dhaqaatiirta waaweyn ee Australia arrimahaas aad iyo aad uga hadlay waxa kamid ah Dr. Mark Williams oo sheegaya sabab baa jirta maskaxiyan ah oo caruurtaasi in loo daneeyo ay tahay mana jirto baahi loo qabo cunug baranaya luqadda Ingiriiska tusaale ahaan xisaab baranaya taariikh baranaya oo base-kiisii la dhisayo ayaa wuxuu u baahan yahay telefoon in la yiraahdo arrintaasna dowladda Australia ee shacabkii 100% waa ay ku qaldameen ayuu leeyahay yaa ogaada talo wadamada kale oo sidaas loo xisaabin oo barnaamijyada waaweyn aan looga diyaarin wadankeenuna rabbi mooyee qof kale uma maqna So the more time
a 2 to 5 year old is on a device. mar waliba oo caruurta yaryari ee da'doodu u dhaxayso 2 ilaa 5 sano ay isticmaalaan qalabkan waxaa isbedelaya heerka cufnaanta maskaxdooda oo muujinaysa inay caafimaad qabto waana arrin aad looga murugoodo marka la eego mustaqbalka caruurtani maskaxda caruurtan ma ahan midii caadiga ahayd ee caruurta kale aan ku arki jirnay ee da'dooda ah marka iskaanka la saaro waxaad arkaysaa isbedel aad u weyn oo muujinaya cunuga kan inuuba sii duqoobaya su-aasha meesha taalla marka waxay tahay maxaan qaban karnaa maxaan qabsan karnaa arrintan tusaale ahaan waa ay nagu dhacday arrintan tusaale ahaan hadda ayaan ku dhex jirnaa oo aan ka cabsaqnayn maxaan qaban karnaa the good news warka fiican waxa weeye maskaxda bini'aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala awood tiro badan ayuu siiyey inay isbedesho oo ay marna si noqoto marna ay si kale noqoto aad bay ugu sahlantahay waa waxa la yidhaahdo neuroplasticity neuroplasticity wuxuu sheegayaa maskaxda bini'aadamku inay sida lastig oo kale tahay isbedelkuna uu aad iyo aad ugu sahlan yahay iyadoo dhinacu janjeerta ayaa waxaa laga gaari karaa haddii xilli fiican la helo in dhinaca kale loo soo aadiyo marka cunugan ku dhegan ee ooyaya ee rafaadsan ee dhulka isku garaacaya waa la bedeli karaa goordhown waxaad arki kartaa isagoo si kale ah adiga kana 24 saac aanan ka maarmaynin ee maskaxdaadu isbedelayso oo mar alla markaad waysid device-kan adigoo dhan si kale noqonayana waad isbedeli kartaa haddaad go'aan gaarto laakiin arrintaasi waxay dalbanaysaa iimaan weyn oo isbedel boqolkiiba 200 iyo go'aan adag inaad ka qaadatid arrinta tan ee hadda laga hadlayo waa mustaqbalkaagii waa caruurtaadii mustaqbalkoodii waa faa'iidada qaranka ummadna ma jiri doonto ilaa in maskaxdoodu ay dib u hanata mooye haddaadan joojinin isticmaalka deviceska iyo qalabyadani ama aadan maaraynin oo wixii dan kugu jirta iyo wixii ku dhibaya aadan kala baran adiga iyo caruurtaaduba qatar waxaa loogu jiraa in aad iyo aad khasaaruhu uu bato haddaanan ficil samayn oo waxba tallaabo aanan qaadinna waxaan ogaan doonaa in caruurteennu beddelkii inagu ayna xanaaneyn lahaayeen aan ku qasbanaan doono inaan inaga xanaanayno iyagoo 18 jira 20 jira 30 jira guriga inay noo fadhiyaan waxna aynan qaban karin dunidii oo dhanna ay ka go'aan walciyaadu billaah ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga hayo arrintaasaan kusoo celiyo haddaanan tallaabo qaadin oo aanan durbo isu badbaadin nafteenna iyo caruurteenna waxaa dhacaysa caruurtii aan rabnay inaan ku dadaalno ee aan rabnay mustaqbalku inayna anfacaan inayna anfacaan iska dhaafay inagu nagu noqdaan culaab haddaad dugsi hoose dhexe sare quraan intaba kula soo dadaashay oo maanta aad is leedahay muu ku anfacana uu damo hada musiibo kaaga badan ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga hayo laakiin waa ikhtiyaaraadka ka mid ah oo dadka qaar ay dooran karaan maanta arrintuna intay kula gudboon tahay ayay arrin tahay waxyaabahan samayn karna waxaa ka mid ah caruurtaada jaha kale u yeel haddii telefoonka masalan guriga laga isticmaalo oo kale aad iyo aad u control jooji gebigiisba okay telefoon ma isticmaalaysaa niclihi u dhiib adiga telefoonkaagii aad haystay oo smartphone-ka ahaa halkaa ka saar yaynan ku arkin adoo isticmaalaya mushkiladda jirta laakiin waxa weeye haddii adiga aad isticmaalaysid way adag tahay caruurta in aad ka goysid waayo cunugii aduu ku fiirsanaya walba qof weyn maadaama aad isticmaalka aadan dhaafaynin yarayso cunugana ishiisa ka qarso arrinta kale muhiimka ah ee bulsho ahaan wax noo tari doonto waxaa ka mid ah in la helo dad arrimahaas u dooda okay urur siyaasadeed waan haynaa urur waxaan haynaa abaaraha u gurmada waxyaabahaasoo la mid kale laakiin haddaan heli lahayn tiim shaqadoodu ay tahay arrimaha noocaas oo kale ah dadka in laga wacyigeliyo media addictionka waxa la dhaho in la qabatimo qalabkan iyo dhibaatooyinka uu leeyahay dadka 4 saac telefishinada laga isticmaalo social media la geliyo uu noqdo wax mainstream ah way fiicnaan lahayd arrinta kale ee bulsho ahaan loo qaban karo waxaa ka mid ah Australia oo kale hadda ay sameeyeen iyo wadamada qaar oo kale digital detox camp baa jira camp iyo xirooyin la isugu tagaa caruurta la kari waayo addictionka uu ku dhaco ama dadka waaweyn xiriyo ay tagaan baa jira xiriyahaas maxaa lagu qabanayaa qofkan baa detox baa loo samaynayaa waxaa laga saarayaa maskaxdan muxuu ahaa dhimatay dhib baa ku dhacaya usbuucyada ugu horeysa waa lagu dhiboonayaa laakiin goor dambe qofkii isbedelay baa arkaysaa
waa xiryahan hadda aan geyno oo kale dadka dhaqan celintii wixii la midka oo kale goordhow waxaad arki doontaa dhaqan celin loo sameynayo dad xaafadoodii jooga dhaqan celin waxaa arki jiray dad dibadda laga keeno Yurub iyo Mareykan iyo meelahaas laga keeno laleeyahay dhaqan celin baa loo keena hadda waxaan arki doonaa goordhow dad dalkoodii jooga maskaxdoodu ay dhimatay oo dhaqan celin baa loo geynayay waxa loo geynaya wax kale maaha waa telefoonada in laga qaado qofkan maskaxdiisa loo ogolaaday inay soo noqoto arrinta iyada waa arrin hadda sameyn kartaa adigu bulsho ahaan laakiin waan u baahannahay inaan baraarujintaasi iyo heerkaasi la gaarno si qof waliba uu go'aanka qayb uga noqdo naftiisa iyo qoyskiisana uu ku dabaqo daraasooyinka waxyaabaha ay sheegayaan waxaa ka mid ah qofka qaangaarka ah in daqiiqadiiba 15 ilaa 20 jeer uu ilbiriqsado oo indhihiisa uu isku qabto waa marka uu ku jiro nolosha caadiga ah masalan waddo markaad maraysid sidoo kale ama aad iska lugaynaysid ama baawur aad saaran tahay 15 ilaa 20 jeer screen time marka isticmaalaysid mobilkaaga ama iPad-kaaga ama whatever waxaa la ogaaday arrintaasi inay hoos u soo dhacayso 4 ilaa 5 jeer kaliya ayay daqiiqadu indhaha ilbiriqsi sameynayaan marka isku qabashada indhahaasuna waa wax weyn oo message u dhacaya maskaxda oo runtii qaleelka indhaha maskaxdii inay arkayso waxyaabo kala duwan intaasoo dhan ay muxuu ahaa u suuragalayso laakiin cunuga markuu sidan u hayo game-na uu saaran yahay sawiro 4 ilaa 5 waaba dadkii waaweynba caruurta marka laga hadlayana waxaa laga yaabaa daqiiqadii oo dhan inuu hal mar ilbiriqsado 60 daqiiqo inuu ilbiriqsado 60 jeer kaliya marka 60 jeer meeshii la rabay 10 jibaar 20 jibaar la rabay cunugii inuu environment-kiisa galo jawigii galo cunug damay weeye isagoo dhamma qaar baad arkaysaa ku seexanaya meesha intaasna waalidkii waaweynaa way ag taagan yihiin ogow wuuna arkayaa inuu wax cunin baa suuragala qofka weyn marka maadaama aad tahay si aad isu xakamaysid xafiis baa ka shaqayn kartaa culays badan buu anagoo dhan nagu wada hayaa rule waxaa jira la yidhahdo 20-20-20 oo micnaheedu yahay 20 daqiiqo kastood shaqaysid ama aad mobil isticmaashid ama laptop wuxuu doona ahaado intaad joojisid 20 feet meel kuu jirta oo xogaa kaa yara fog isha ku qaba fiiri si aad u heshid waxyaabo kala duwan fiirmadaasna waxaad ku haysaa 20 second secondadaas markaad ku haysid mar waliba waxaad samaysaa indhaha isku qabo fur indhaha isku qabo fur isku qabo blink dhab si wax weyn ayay u taraysaa waayo waxaa la bedelayaa message-kii iyo dhambaalkii maskaxda gaarayay indhuhuna inay qallalaan oo ay dhiboodaan waad ka badbaadaysaa haddii aad waalid tahay qaad tallaabooyinkan si gaara number 1 caruurtaada ka yar 7 sano ka mamnuuc gabi ahaanba telefoon tablet computer ka mamnuuc kaliya TV-gaas xaafadda yaalla oo isaga laftigiisa aan wax badan keenin laakiin ugu yaraan dhaladaas weyn oo ay ka fog yihiin u daa haddii kale caruurteena iyagoo yaryar ayaan ku qasbanaan doonaa marka ay la qabsadaan hadhow dambe inaan ka goon kari waayo number 2 ku baraaruji arrintan iyada ah qof waliba oo guriga kula jooga hooyo haddaa tahay keligaa ma kontrooli kartid gabadha shaqaalaha gabadha kula dhalatay adeerka aabbaha eedada kulli target ha idin noqdo ololaha lagu qaado caruurta iyaga ah in mar walba laga control laakiin mararka qaar waxaa dhacaysa hooyadii baa telefoon ka celinaysa eedadii baa siinaysa wuu ooyey ii dhaaf wiilkayga ayaa lagu leeyahay mustaqbalkii baa lagu bedelanaya waa ogtahay arrintaa marka ku baraaruji qoyskoo dhan inuu qayb ka noqdo si dagaalka loo wada galo arrinta saddexaad ee muhiimka adiga dhalinyarada ama waalidka ah ama qofka weyn oo guriga jooga iska yaree isticmaalka agabkaas adiga laftiga bilow marka aad isticmaalaysidna 30 daqiiqo kasta iska dhig jooji ama ku xira app kuu digaya oo kuu sheegaya maadaama wuxuu uu aad addictive u yahay oo laga yaabo inaad xasuusan 30 daqiiqo kasta iska dhig hawl kala qabo istaag hooyo haddaa tahay aabba haddaa tahay qof dhalinyaro haddaa tahay istaag guriga wax ka qabo meelaha iska tag soo jimc baxso dhalinyaro haddaa tahay xoogaa yar oo muxuu ahaa ii sheeg exercise soo samey do something every 30 minutes 30 daqiiqo kasta qorshe ka dhigo inaad wax un qabatid oo aynan kula tegin waa dhalinyaro waalidka adiga ah si gaara halis gaar ah ayaa kugu jirta isticmaalka arrintaas maadaama da'daadu ay sii weynaanayso mas-uuliyadaadu ay badan tahay stresskaaga iyo howlahaaguna ay sare u qaadayaan arrintaa waxay soo dadejin kartaa duqoobista maskaxdaada cudurradii 60 sano kugu dhici lahaa ayaa 30 jir kugula dhici doona cudurradii 70 sano ah ayaa laga yaabaa inuu 40 jir kugu yimaado
kama celin kartid caruurtaada waxa adiga ku mashquulsan tahay qoftiisaba daryeela mid kale ku dara waalidku waxaan aad iyo aad ugula talinayaa marka inay arrintaa iyagu iska bilaabaan oo ay ku dadaalaan boqolkiiba boqol. Yeah, so we see a lot of people who are spending too much time on the devices. waxaan aragnaa dad badan oo isticmaala aaladahan inay durbaba xinaaqayaan marka ay waayaan mobilkii ay isticmaali jireen ama iPadkii wuxuu ahaadaba dhib ayay ku qabaan inay la xiriiraan dadka kale oo inay sii wadaan saaxiibtinimadii kala dhaxaysay dadyowga kale. daraasooyinka qaar ayaa tilmaamaya in isticmaalka tirada badan ee baraha bulshada iyo internetka iyo waxa la xiriira uu xataa qayb weyn ka yahay burburka qoysas badan oo daraasooyin lagu sameeyay. sababtuna wax kale ma aha habeenkii oo dhan markay gabadha soo jeedo ama odagu uu soo jeedo oo waa barigii laga yaabo in 3-4 ay indhaha isku qabato maalinta ka dambaysa maalinta iyadoo dhan jawigeedu uu qasan yahay su'aal waliba ay weydiiso xinaaq baa ka dhalanaya wax waliba ay aragto waa u negative odagii way ku kacsan tahay isagii hadduu alla ku raaxay xaajidii waxa la waxay tiraahdo waa negative waa ummad gebigoodba aanan deganeyn oo xasiloonida ay ka tagtay sababtuna wax kale maaha isbedel weyn oo ku yimid weeye nidaamkii jirka ilaahay ugu talagalay gaar ahaan hormoonka la yiraahdo cortisol waa hormoon ay soo saaraan qanjirada kaasoo u shaqeeya sidii maamulaha ugu weyn ee walbahaarka jirka bini'aadamka xakameeya isla markaana nidaamiya kiimikada dheefshiidka u xilsaaran ama waxa la yiraahdo metabolism cadaadiska dhiigga shaqada difaaca jirka iyo wareegga hurdada iyo soo jeedka waa ciddii nidaamin lahayd xilligaad hurdi lahayd iyo xilligaad soo jeedi lahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala isaa u talagalay oo cortisolku waa la yaqaanaa oo subaxii marka 9 saac 10 saac 11 saac subaxnimo soo gaaro sare ayuu u kacaa maalintii oo dhan mar walba ka dambaysa 6 saac 7 saac 8 saac 10 saac marka la soo gaarana hoos u soo dhacaa si caawa aad u seexatid nidaamkaas marka uu qasmo marka waxaa qasmaya wax waliba oo kale oo jirkaagii ama dheefshiid ha ahaado ama hormoono kale oo saameyn uu ku leeyahay ama hurdadaadii wixii oo dhan ha ahaato gabadhii ama wiilkii oo stresskiisa uu sare u kacsan yahay wax waliba waa u negative sidaa darteed khilaafka qoyska ayaa badanaya khilaafka qoyska marka uu batana oo mar waliba waxa la isku haystana waxa ku xiga waa iska taqaana waa burburkii qoyska oo cidna aynan dan ugu jirin arrinta marka waxa laga yaabaa gabadhu inay eedo ninka wiilkana uu eedo gabadha iyo wixii la midka ah laakiin hoos waxa ka shaqaysanaya duul aadan tabar u haynin aadan fahamsanayn laakiin maalinta aad fahamtid waa wax gacantaada ku jira sunta gacantaada ku jirtana adiga ayaa cabi kara ama iska tuuri kara ha ku doorsan naftaada caruurtaada iyo qoyskaaga wax adduun iyo aakhiro aan waxba kuu tarayn ka kac fadhiga oo ha fiirsan noloshaada iyo nolosha caruurtaada iyo qoyskaaga oo sii burburaysa maalinba maalinta ka dambaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala garabkeena ha inoo galo fadlan la wadaag muuqaalkana cid waliba oo kale oo aad isleedahay way ka faa'iidi kartaa aan isgaarsiino qofka markuu isbarto ayuu wax ka faa'iidi karaa qofka markuu isaga isfahmo ayaa sideedaba wax u qabsan karaa fadlan qaybta hoose ka eeg koorsooyin kala duwan oo ku saabsan horumarinta shakhsiyadda bini'aadamka sida koorsada caanka ah ee arrimahan qusaysa ee la yiraahdo isbaro aad guulaysatide isbaro oo wax qabso ama isbaro oo guulayso waxa weeye qofka markuu isaga wax iska ogaado ayuu sideeduba wax qabsan karaa marka qaybta hoose ka eeg gaarsii dadka kale ilaahay subxaanahu wa tacaala garabkeena ha galo